Sheekada 23-aad Dhalashadii Ciise Masiix. Maryan waxay u doonanayd nin wanaagsan oo la dhihi jiray Yuusuf. Yuusuf markuu maqlay in Maryan ay uur leedahay, wuxuu ogaaday inuusan ahayn aabbaha ilmahaas. Ma uusan rabin inuu ceebeeyo gabadha, beddelkeedana wuxuu go'aansaday inuu iska furo iyada si aan la wada dareemayn. Inta uusan sidaas samayn, malag ayaa u yimid isaga si riyo ahaan ah. Malaggii ayaa ku yidhi, Yuusufow ha ka cabsanin in Maryan ay xaaskaaga noqoto. Ilmaha ay uurka ku siddo waa ruuxdii Ilaahay, waxayna dhali doontaa wiil, waxaadna u bixin doontaa Ciise Masiix, maxaa yeelay wuxuu dadka ka badbaadin doonaa dembiyadooda. Kadib, Yuusuf wuu yeelay sidii la faray, oo gurigiisii ayuu geystay, laakiin lama uusan seexan iyada ilaa ay ka dhalaysay. Markii ay soo dhowaatay xilligii ay Maryan dhali lahayd, ayaa Yuusuf iyo Maryan waxay safar dheer ku tageen Baytulaxam, waayo maamulkii Roomaaniyiinta ayaa amar ku baxshay in dadka oo dhan tagaan magaalada ay ka soo jeedaan si ay isku diiwaan geliyaan. Yuusuf wuxuu ahaa faracii Nebi Daa'uud. Nebi Daa'uudna wuxuu ku dhashay magaalada Baytulaxam. Markay yimaadeen Baytulaxam, waxay waayeen meel ay degaan. Meesha keliya ay degi kareenna waxay ahayd meel xoolaha lagu xareeyo, halkaas ayayna degeen. Maryanna halkaas ayay ku dhashay wiilkeedii, waxayna u bixiyeen Ciise. Isla habeenkaas, waxaa halkaas ka ag dhowaa niman xoolo dhaqato ah oo meesha dab uga shidhnaa si ay u ilaashadaan xoolahooda. Nimankii waxaa u yimid malag dhalaalaya, aad ayay u cabsadeen, laakiin malaggii ayaa ku yidhi, ha cabsanina, maxaa yeelay waxaan idiin sidaa war wanaagsan. Masiixa, sayidkii ayaa ku dhashay Baytulaxam. Orda oo wiilka raadiya, waxaad arki doontaan isagoo maro yar ku duuban oo dhex jiifa qabaalka. Isla markiiba waxaa samada buuxshay malaa'igo Ilaahay ammaanaya oo leh, Ilaaha samada sare abuuray ayaa ammaanan, oo nabad waxay kor ahaatay dadka dhulka ku nool ee la doortay. Markii adhijiradu ay tageen meeshii uu Ciise joogay, waxay u tageen isagoo dhex jiifa qabaalka, siduu malagga uu ugu sheegay. Adhijiradu aad ayay u farxeen, kadib way noqdeen iyagoo Ilaah ammaanaya oo weyneynayo. Sidoo kale Maryanna aad ayay u faraxday. Waxaa jiray niman aad u xigmad badnaa oo degganaa Yeruusaalem dhankeeda bari. Waxayna arkeen xiddig aan la arki jirin, waxayna ogaadeen in boqor cusub uu ka dhex dhashay Yahuudda. Kadib way soo safreen si ay u arkaan boqorka cusub ee dhashay. Safar dheer kadib, waxay yimaadeen Baytulaxam, waxayna tageen meeshii uu Ciise ku noolaa. Markii ay arkeen Ciise iyo hooyadiis, way foorarsadeen wayna caabudeen isaga. Waxay Ciise siiyeen hadiyado aad u qaali ah, kadibna waxay ku laabteen guryahoodii.